Diamond ayaan ka hadli doonaa habeen iyo maalin xilliga ay inoo tahayba. Waxaa halkan idinka soo tabinaya anigoo ah Cabdullaahi Siciid Sheekh Xasan. Diamond waa macdan qaali ah oo laga helo dhulka qaar ka mid ah. Gaar ahaan dhulka laga helo waxaa ugu badan in laga helo 250 kiiloomitir ilaa 150 kiiloomitir ugu yaraan sida caadiga ah dhulka hoostiisa. Meelo badan oo caalamka waxaa jira loo asteeyay in diamond ku badan tahay. Dhulal aan loo asteyn oo weli la ogaan ayaa jira oo tiro badan. Diamond waxay leedahay tilmaamo lagu garto sida dhulka laga helo. Waxaa jira dhagax bahwadaag ah ama ay diamond mararka qaar wada socon karaan. Diamond waxaa lagu yaqaanaa dhulka buuraha leh ayaa horta laga heli karaa dhul ahaan haddii dhulka sare la eego. Buuraha diamond ku jidho waxay ka qurux badan yihiin buuraha kale. Sidoo kale diamond mararka xilli roobaadka roobku da'ayo ayaa la heli karaa iyada oo dhagaxda waaweyn la kabiyo diamond oo ku dhagan ay jabi karaan ama ay kala dilaaci kara dhagaxaasi taasoo diamond kalifi kadha inay ka soo baxdo. Diamond markeeda hore iyo markeeda dambe waa dhagax qurux badan oo qaalinimadiisu ay banaanka taalo. Haddii la sii qorana waa dhagax aad isu muujiya. Macdanta caalamka dadka jooga dunida boqolkiiba waxaa yaqaana dadka yar 10 ayaa macdanta si fiican u yaqaana caalamka. Waxaana boqolkiiba 1 ayaa caalamka si toos ah macdanta uga irsaaqa. Diamond waxay ka mid tahay macdanaha qaaliga ah haddana naadirka ah haddana aan si sahal loo heli karin. Qofka raadinaya aad ayuu juhdi ugu bixinayaa iyo jaha aad u tiro badan. Diamond haddaad tiraahdo waan doonayaa waxaa lagaaga baahan yahay inaad aqoon u leedahay diamond meesha laga heli karo iyo inay wax sahlan tahay inaysan ahayn. Haddii aad laakiin iska tiraahdo diamond baan doonayaa dhib badan ayaad la kulmi doontaa. Diamond waxaa jira dhagxaan mararka qaarkood lala heli karo. Dhagxaantaas oo aan sharaxi doono. 5 dhagax ayaa ugu qaalisan ayaa ugu badan marka aan qiimeynayno dhagxanta ula socdo. Waxaana la kala yiraahdaa granite, quartz, ornithine iyo kimberlite iyo peridotite. Kimberlite marka la qiimeynayo dhagaxdan 5 ah waxay diris leeyihiin mar walba dahabka. Aqoonyahanada mar walba waxay qiimeeyaan macdanta inay tahay wax muhiim ah si sahlan aan loo heli karin. Haddii aad raadinayso waxaad u baahan tahay xog badan inaad hesho. Annaguna waxaan kuu diyaarinay qaybtii macdan baarista oo online ka ahayd iyo qaybtii waxbarashada ardayda oo online ka ahayd oo qofka loola shaqeynayo hab caalami ah asagoo mar walba lagu caawinayo haba wixii caqabad u soo sheegto laakiin uusan ahayn arday joogto ah. Waxaa kaloo jira buugaagtii macdanta oo aan sameynay buugga macdanta koowaad oo isugu jira macdana badan. Annaga oo awal rabnay inaan sameyno buugaag kale oo macdana isku xiriirana laakiin hadda diyaarinayna macdanta buugaag u kala gaargaara oo macdan walbaaba buug gooni ay heli doonto. Annaga oo mar walba buugaaga diyaarintooda ku xiri doona bulshada xiiseynaysa haba inta ay tiro la eg tahay iyo haba kii loogu xiisa badan yahay soo hormarin doona si gooni asagoo dhammaystiran xogtiisa. Mar walba waxaa aad idinka codsanaynaa aniga iyo asxaabtayda igu xiranba asxaabtayda cusubay iyo kuwii hore u joogayba inaad barnaamijkaas subscribe garaysataan, like-na saadhaan, share-na samaysaan, asxaabihiina oo dhan gaarsiisaan. Wax kastoo aad tabaysaan ama aad xiiseynaysaan ama aad u bogteen aad commentiga nagula wadaagtaan. Waxay naga dhisi kartaa barnaamijka qaybta kalsoonida iyo hididiilada aanu qabno iyo dareemista aanu dareemayno dadku inuu xiiseynayo barnaamijkeena. Taas oo keeni karta idinkana inaad xog badan sii heshaan. Wax kasta oo xog ah oo aan wada wadaagno waxay noo noqon doontaa caawin annaga iyo idinkaba. Mar walba barnaamijkan waxaa idiin soo tabiyay anigoo Cabdullaahi Siciid Sheekh Xasan. Hadda waxaan ka soo tabinayaa Galdogob magaalada degmada Galdogob oo ka tirsan gobolka Mudug.
deris la ah degmada Gaalkacyo dhanka galbeed, sidoo kalena Itoobiya cirifkeeda ku taala, dhanka kalena Puntland iyo Galmudug labadaba deris la ah. Soo dhawaada, subscribe saar.